السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم وريلك شعبك يوتيوب كان وعبد حسن عبدولي muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa wadanka Jarmalka. Haddaba wadanka Jarmalka sidee la iskaga dhiibaa? Interview nooca ayaa markaas qofka qaxootiga ee wadankaasi soo gala laga qaadaa. Imisa interviewgaas loogu soo jawaabaa. Iyadoo noocyada laga bixiyo wadankaasi waa imisa. Intuba muuqaalkan ayaan ku faahfaahin doonaa. haddii ay tahay markii kuugu horeysay YouTube-kayga soo booqatay waxaan ku leeyahay qaybta hoose YouTube subscribe inoo sar waa inoo muhiim waa inoo dhiirigelin sidoo kale muuqaalka laagta inoo saar marka ugu horeysa isdiiwaangelinta iyo qaadista xogta marka qofku yimaado waxa laga qaadaa faraha fingerprinting intuba waa taqaanin sawir iyo xogta asaasiga ah qofka ayaa laga qaadaa waxaa la siiyaa meel ku meel gaar ah oo uu markaasi deganaado ama deganaansho ah ayaa qofka la siiyaa labo codsiga magangeliyada qofka waxa uu si rasmi ah u dalban karaa magangeliyo marka ugu horeysa waxaana la siiyaa warqad ku meel gaar ah inta uu kiiskiisa inta la baarayo saddex interview weyn tani waa qaybta ugu muhiimsan ee markaas interviewga qofka waxa la weydiiyaa sababta uu dalkiisi uga soo baxay waxa khatarta ah ee markaas haysta safarkiisa haddii uu horay dal kale uga codsaday magangeliyo ayaa lagu weydiiyaa badanaa dadka waxay maraan markaa hal interview oo weyn oo rasmi ah laakiin marmarka qaar waxaa jiri kara interview dheeraad oo haddii xog dheeraad haddii loo baahdo ama haddii dokumentiyo cusub markaasi ay yimaadaan markaas qofka interview kale ayaa lala yeelanaa macnaha interviewga markii laga hadlayo interviewgu badanaa laba ayaa loo kala saaraa laakiin warbixinta sida markaan raadinayo warbixintu waxay soo qaadanaysaa sida guud ayay soo qaadanaysaa macnaha interviewga yararka wax iska fudud waa badanaa oo qolooyinka ugu horeeya immigrationka waxa interviewgaas qora laakiin sida guud interviewga waa laga hadlayo waa midka qofka sharci lagu siiyo ama loogu diido intaas inaan fahanno ayaa muhiim ah marka Jarmalku waa hal interview jawaabta interviewga imisay qaadataa marka wadanka Jarmalka qaar waxay jawaabtu helaan dhowr bilood gudahood ayay ku helaan jawaabta qaar kalena waxay ku qaadataa 6 bilood ilaa iyo sanad ama ka badan ayay ku qaadataa waxay ku xiran tahay dalka qofku ka yimid ayay ku xiran tahay culayska xafiiska qaxootiga ayay laftirkeeda ku xiran tahay haddii uu xafiisku shaqo saas uu san wax laga yaabo qof hore in looga soo jawaabo haddii dad badan ay joogaan oo la qaabilina waxa laga yaabaa in ay xoogaa qaadato iyo haddii kiisku adag yahay oo kale laftirkeeda way qaadataa kiiska baaritaan badan haddii u baahan yahay waa ku qasab in kiiskaasi waqti la siiyo noocyada sharciyada la bixiyo gudaha Jarmalka markaa dadka waxaa badanaa la kala siiyaa dhowr nooc oo sharci ah macnaha midka koowaad waa sharci buuxa waa sharciga qaxootiga waxaa la siiyaa qofka si gaar ah loogu soo bartilmaameedsada sida siyaasad qabiil diin jinsi ama fikir kale uu aaminsan yahay lagu soo bartilmaameedsada sharciga labaad marka waxa la yiraahdaa magangeliyo siyaasadeed ayaa la yiraahdaa sharciga labaad sharcigan oo markaas wuxuuna ka hooseeyaa sharciga qaxootiga ayuu ka hooseeyaa sharcigan oo xoogan dadka qaar la siiyaa hadii dawladda si toos ah u cadaadinayso macnaha sharcigan waa sharci muhiim ah marka dawladda hadii ay si toos u cadaadinayso waa dawladii ay wadankii ay ka yimaadeen kale si toos u cadaadinayso ayaa dadka la siiyaa sharciga labaad marka waa ilaalin dheeraad ah ayaa la yiraahdaa waa midka macnaha bini'aadamnimada kale qofka aan qaxooti buuxa noqon ayaa markaas la siiyaa laakiin dalkiisa qatar ay ka jirto macnaha qofka sharci qaxooti oo buuxa aan la siinin ayaa markaas la siiyaa marka qofkaas waxa laga yaabaa xaalad qatar inay dalkiisa ay ka jirto marka xaaladaha ka jira dalkiisa waxa kamid oo kale dagaal dil iyo jirdil sida Soomaaliya oo kale ayaa kamid ah marka sharci afraad ayaa asna jira sharciyada wadanka Jarmalka aad ay u badan yihiin mamnuucida masaafurinta ayaa la yiraahdaa sharcigan afraad haddii qofka dib loogu celiyo dalkiisa ay caafimaad ama qatar xaalado kale uu la kulmi karo ayaa markaas la yiraahdaa marka midka shanaad marka waa mid diidma ah oo macnaha rejectiga ah midka diidmada haddii la rumaysan waayo ama shuruudaha la buuxin waayo ayaa markaas qofka la siiyaa diidmo badanaa sharciyada marka qaxootiga buuxa badanaa waa 3 sano taas waa sax midka kale ee ku xiga badanaa asna waa 1 sano kaasna wuu jira ka badan oo la cusboonaysiin kara laftirkeeda way jirtaa macnaha 1 sano la siinaa qofka kadib ayaa loo cusboonaysiinaya 2 sano looga dhigaa 3 sano waa sidaas kadib waxa suurtagal noqon karta deganaansho joogto ah qofka in la siiyo haddii uu shuruudaha buuxiyo marka intaas ayaa markaas sharciyada iyo interview
interviewga iyo habka macnaha qofka uu maro wadanka Jarmalka ay markaasi ay kusoo koobaya oo muuqaalkayga uga hadlayay. Haddaba muuqaalintaas ayaan kusoo gabagabeynaya inta muuqaal kale oo xiiso leh kulmi doono waxaan idinka tagay sidaas iyo nabadgelyo.